قراد نور قرادك والله waxaan weeyay masaajidka Abubakar waa ku tukadaa waana salaadaha ana waa ku xidhanahay open house kan aan u nimi maanta inaanu ka qayb gallo oo nala ku casumay salaadana markasta waa ku tukanaa Abubakar walaalo arrimaha laga sheegaya maxay yihiin arrimaha laga sheegaya arrimahaas wax ka jira ma jiraan salaad walbana waa ku tukanaa wax ka jira ma jiraan arrimahaas anagu salaad walba waa ku tukanaa wax ciyaal la dhoofiyo ama wax ciyaal ku taxalluqa in la dirona masaajidku kuma shuqul laha ja salaaduhum baa lagu tukadaa ummadana wixii dhibana ma ogola in markasta laga qayb qaato waxay u sheegaan inay waalidku waxaan u sheegi lahaa masaajidku wuxuu ka dhaxeeyaa muslimiinta oo dhan waa gurigeena ku soo ordaynay waa gurigeena ku soo cararaynay dadka dhibaataysan oo xitaa banaanada laga eriyay ba masaajidku wax u qabtaa oo helbi gareeya qorta beedkan wuxuu ka dhaxeeyaa muslimiinta oo dhan Soomaali xitaa kuma koobna qorta aad waxaan u jeclaan lahaa inaan ummadda kalena u sheegno in beedkan uu yahay beed islaamka oo dhan ka dhaxeeya oo aan wax dhibaato ah ama wax terrorista ama wax ummadda ku dhiba aanu ku jirin okay walaalkiis aadaad weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii dadka Soomaalida open house-ka marka waxaan rabnaa marka dadka Soomaalida inaan u sheegno weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkan kaga duuweynay haddana waxaan la kulnay in dhalinyarada Soomaaliyeed dhinacaana BBC waxaan filayaa inaad soo laabatay ka waran barnaamijkan maanta aadka u qurux badan runtii barnaamijkan maanta ka socda ee Abubakar Sadiq Islamic Center ee magaalada Mineapolis ee gobolka Minnesota waa barnaamij runtii muhiim ah dadka oo dhan ay isugu yimi waxaan laga hadlayaa dhibaatooyinka jira ee community-ga iyadoo runtii dad badan oo muddo isarkeen dad badan oo ajnabiya oo kala kala dinaya isugu yimi runtii waxaan arkaa inuu yahay barnaamij muhiim ah waxaana mahad iska leh marka waraysa Ilaahay kadibna dadkii qabanqaabiyay oo barnaamijkan qayb ka qaatay culimooyinka masaajidka iyo raggii kale oo qabanqaabiyay BBC soo aragtaa masaajidka waxyaabaha laga sheegay waxa la yiri masaajidkan waa dad argixisa xaq jiro oo ciyaalkii dhoofiyaan marka nin wariyaa tahay dadka u dhoondolala arrimahan masaajidka marka waa masaajidka ugu magac dheer oo noqday sanadkan marka arintaas ka waran anigu waxaan qabaa wadankan joogno waxa ka jirta dawlad iyo sharci iyo system iyo nidaam haddii masaajidka wax lagu tumayo waxa la marayaa sida sharciga iyo qawaaniinta iyaga ayaa kiiskooda baaranaya haddii masaajid dambi uu leeyahay oo soo baxaysa haddii uu dambi lahayna de waxa waaye faraha ayaa laga qaadayaa sumcadda masaajidka in la ilaaliyo fiican marka annagu yaana ka hordagin dadku yeena ma taqaanaa wararka miidiyaha laga sheegay in qaadan aan u dayno dadka shaqada iska leh oo dawladda ah soo fiiriya xaaladda soo baartaan haddii wax kiis ay la yimaadaan waa arkaynaa haddii kalena de faraha laga qaado masaajidka waalidiinta runtii waxa fiican in ma taqaanaa ilmahooda youthka dhalinyarada ay ma taqaanaa ogaadaan runtii ay ku xiraan ma taqaanaa meelaha fiican saa ogtaaba magaalada Minneapolis dhalinyaro badan baa jirta waa in loo suubiyo barnaamijyo oo community-ga anfacaya iyagana anfacaya Tell us, what's your name, sir? My name is Craig. I moved here from New York to attend the Islamic University of Minnesota. It's the first university in North America where you can actually take classes with sheikhs and talk to them about Islam and about Islamic economics, about Aqidah, about fiqh. I'm here today to show solidarity with the Somalis in this neighborhood who are under certain controversies and criticisms, and to affirm that Islam's not about terrorism. Indeed, you'll learn that Islam's against terrorism, and that the common portrayal of Islam in the media for reasons of international policy or whatever is incorrect, that there's actually an entirely different Islam, that the true Islam, which finds such terrorism reprehensible. And all Somalis who are in Islam know that, and all non-Somalis that are in Islam know that as well. And so I'm just trying to show solidarity with the brothers here and say, look, we know that you guys have been incorrectly portrayed. Maybe individuals in the community have been lied to and twisted into acts.
what would you say to other communities, like people in America, like people who are not Islam, people who are non-believers, like people who don't understand what Islam is? What would you send? What the message you sending that? My message is to please ensure that you find the true Islam by studying what it actually says and not just accepting what you hear on the media. Two, if you're going to look at what's happening in Somalia, you have to go back not to some idea of what's going on today, but to actually look at American history. In American history, when we had British troops on our soil, we fought those troops, and we teach in our high schools today that that was a legitimate resistance to foreign occupation. And what's going on in Somalia, in my view, has nothing to do with Islam or Christianity. It has to do with resistance to a foreign occupation, whether it's United Nations troops or Ethiopian troops. People that resist such oppression by a foreign power are guaranteed the right to do so under the United Nations Charter. But it has nothing to do with Islam. Islam is basically saying that there are just wars, just like Christianity says. And so my message to you is to find the real truth of what Islam's about and what the Ethiopian conflict's about. What's your name, sir? Scott Gillespie. You want me to hold this? Scott Gillespie. I'm here to learn more about the community, meet people from the community, and talk about the recent events and how they're unfolding. No, the first time I've been here, but I've been in other mosques before. Yeah. Well, you know, to the Somali community, I think the message we want to send is that we're trying to understand, and we're trying to get a sense of what's going on in the community, how the community's reacting to the news, and that's important right now. I think situations that we're dealing with are complex, and so there's a search for answers, and I think it's happening in the Somali community, and I think that search for answers is happening outside the Somali community in Minnesota as well. You're welcome. Tell us why you're here today. Okay. Well, my name is Esme Murphy, and I'm a reporter with WCCO TV. And I did a live report from here at 5 and 6. We also have a cameraman here. And the reason that we're here is that we are thankful for the invitation from the Abubakar Mosque. And we have interviewed the executive director, and basically we want to get some insight into the Somali community. We've also interviewed some family members that are very concerned about the loss of these young men. So we're really here to get some understanding, and also to show the community that the mosque is opening its doors and wants people to know more about them. This is the first time being in the mosque. Yes, I guess it was. I was here yesterday as well. So yes, it is the first time I've been in a mosque. Yes. Yeah. Oh, you're very welcome. Very welcome. Anytime. Okay. Allah.